السلام عليكم دمانتين aad baan idin salaamayaa waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa muuqaal kooban oo aan ku sharaxi doono ama aynu ku arki doono qaabka ugu fudud ee aad u bedeli karto geerka gaadhiga marka ninkan odayga wuxuu inoo tilmaami doonaa qaabka ugu fudud ee aad u bedelan karto gaadhiga geerkiisa isagoo socda marka haddii aad rabto isagoo taagan gaadhiga inaad ku barbarato oo tijaabiso inaad la keeni karto iyo in kale marka hore waxa lagaaga baahan yahay inaad calaamadan falaadha casaalka ay tilmaamayso kor u soo jiido waa handbrake ama handbremse si aanu gaadhigu dhaqaaq u sameynin gaadhiguna uu ku dansanaado marka gaadhiga oo dansan iyo handbrake oo ku jiidan ayaa waxaad sameynaysaa tijaabadan haddii aad rabto inaad barato gaadhiyadu way ku kala duwan yihiin inta number ama inta gear ay leeyihiin waxa kale oo ku kala duwan yihiin qaabka rugfeerka ama reverse-ka dib bixitaanka loo sameeyo marka muuqaalo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa baabuur kala duwan baabuurkan wuxuu leeyahay 5 marka 1 iyo 2 isku beegan 3 iyo 4 isku beegan yihiin 5 iyo r oo reverse-ki ama dib bixidina isku beegan yihiin marka halkan waxaynu ku arki doonaa qaabka aad hal number oo kasta aad u bedeli karto qaybtan dhexe ee uu hadda dhaqaajinayo waa markuu 0 yahay ama aan wax geeri ku jirin afarta dhinacba waa inay si fudud kuugu dhaqaaqi karto saasaad ku garan kartaa marka gacanta sida uu leeyahay waa sida ugu fudud uu ku tusin karo kadib waad ku daboolaysaa adiga oo isdhibin ama aanad wax farahaaga aanad ku soo duubin gacanta hal mar haddii aad saan dhinacan u soo dhaqaajiso waa marka aad 1 iyo 2 gelinayso dhinaca kale markaad u dhaqaajiso waa markaad 5 iyo reverse gelinayso marka xaggan markaad u soo dhaqaaqdo waxay ku tusinaysaa inay 1 iyo 2 tahay xaggan markaad u celisana 5 iyo reverse markaas imika waxaynu tijaabin doonaa qaabka ugu fudud ee aad number 1 u gelin karto ama aad number 1 u gelin qaabka ugu fudud ee number 1 gelin karto halkan ayaad u soo dhaqaajinaysaa gacantaada baabacada adigoo ku haya kadib waxoogaa hore ayaad u riixaysaa kadib gacanta waxaad saaraysaa steerinka wadada ayaad eegaysaa waayo waxaad wada gaadhi saasay macnaha tusaalaha lagugu siinay kadib 2 haddii aad rabto laba mar ayaad dib soo noqonaysaa hal mar oo dhexda ah iyo hal mar oo 2giya imika 2 ayaa inoogu jira kadib gacanta steerinka ayaad saaraysaa xagga hore ayaad eegaysaa 3 haddii aad rabto laba mar ayaad isagana xagga hore u soo dhaqaaqaysaa mar dhexda ah iyo mar xagga dambe hore ah mar xagga hore aad u riixday kadib sidii baad sameynaysaa 4 haddii aad rabto isagana hal mar baad dhexda keenaysaa hal mar oo kalena dib ayaad soo wadaysaa yacni toos sida isugu beegan yihiin kadib 4 ayaa kuugu jira 5 haddii aad rabto dhexda ayaad geenaysaa marka dhinacan ayaad u qaloocinaysaa midigta kadib hore ayaad u riixaysaa 5 ayaa saa kuugu jira kadib haddii aad rabto inaad sameyso rugfeert ama dib u bixid dhexda ayaad keenaysaa ama neutral dhexda marka aad keento dhinacaas ayaad u jiidaysaa kadib dib ayaad u bixinaysaa mar labaad ayaanu arki doonaa dhexda ayaad keenaysaa kadib xaggaas ayaad waxoogaa u riixaysaa adoo baabacada ku haya kadib gadaal ama dib ayaad u riixaysaa marka rugfeert ama dib u bixidii ayaa kuugu jira waxaanad xasuusnaataa markasta oo aad geerka bedelayso inaad lugtaada bidixda ku riixdo kublunka ama kleeshka meeshaas oo sawirka halkan nooga muuqda falaadhaas madow ayaa tilmaamaysa meesha aad lugta ku riixayso haddii aanad lugta ku cadaadin oo aanad ilaa halka u dambaysa aanad lugta aad ugu cadaadin geerku kuma bedelmayo wayna adag tahay inaad si fudud ku dhaqdhaqaajiso markasta kublunka ama calaamada halka idinka muuqata ayaad lugta ku riixaysaa ninkan waxay ugu beegan tahay lugtiisa bidixda ah ee gacantiisa ku naban baabuurtu sida aan idin sheegay way ku kala duwan yihiin qaabka rugfeerka ama reverse-ka ama dib u bixidda loo geliyo inta number ee uu leeyahay ama inta speedkiisu uu yahayna way ku kala duwan yihiin marka muuqaalo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa qaabka loo bedelo baabuurta noocyadooda kala duwan intii macquul ah ee aynu ka soo gaarsiin karno intaas waxay noogu dhan muuqaalkeenii maanta dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa haddii aad kanalka ku cusub tahay fadlan subscribe haddii aad muuqaalkan ka heshayna fadlan like lana wadaag asxaabtaada dhammaantiin waan idin salaamay